xubno ka socda komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa iyagoo ka soo kicay tamay dhinaca caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxay maanta soo gaareen magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo. xubnahan komishanka uu hogaaminayay Komishinar Cabdiraxmaan Cismaan Aadan ayaa kolkii ay soo gaareen magaalada Ceerigaabo waxay toos u tageen xarunta jaamacadda Sanaag University halkaas oo tababar maalmahanba uga soconayay shaqaalaha dhawaan degaan xeebeedyada ka qaybin doona kaararka codbixiyayaasha. waxaana halkaas ugu horeyn hadal kooban oo soo dhaweynta wafdiga komishanka ku saabsan ka yidhi barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay. gudoomiye ku soo dhawaada gobolka Sanaag aad iyo aad baanu Cabdiraxmaan idin soo dhaweynaa adigoo ka tirsan komishanka guud ee qaranka adiga iyo tiimkaaga halka aad hogaaminaysaaba gobolka Sanaag waa nabad diyaarna waxaan u nahay haddii aanu nahay gobolka Sanaag in aanu qaadano ama la qaato kaararkii codbixiyayaasha. Komishinar Cabdiraxmaan Sagal oo wafdigan komishanka hogaaminayay ayaa isaguna wuxuu halkaasi kaga warramay ujeedada socdaalkoodan. waxaan u nimi oo ujeedada u nimay tahay iminka in aanu hawshii kaar qaybinta ee xeebaha ku teedsan gobolka Sanaag aanu bilowno si dhaqso ah si aanu dadkii goobaha deganaa ee isdiiwaan galiyay ugu geyno kaararkoodii si ay ugu codeeyaan. goobaha la geynayo waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha degan ee iska diiwaan galiyay inay ku diyaar garoobaan goobtaas 29 bisha. waxa loo geynayaa goob walba kaararkoodii. dhinaca kalena gudoomiyaha wafdigan komishanka isagoo la dardaarmayay hawlwadeennada qaybin doona kaararka codbixiyayaasha ee degaan xeebeedyada gobolka Sanaag ka bilaabmi doona 29 bishan aynu ku jirnana waxa hadaladiisii ka mid ahaa. hawsha waxaan doonaynaa si qarannimo inay u gudataan oo dulqaad leh dadka halkaa jooga u tagtaan si fiican ugu shaqaysaan oo qof walba kaarkiisa oo kaliya asiisaan. inanka aabihii ma dhiibi kartaan ninka xaaskiisa kuma dhiibi kartaan qof waliba kaarkiisa oo kaliya qof loogu dhiibi karaa ma jiro idinkuna qof ma qaadi kartaan. marka qolka la soo galiyo waa la isbaarayaa marka laga baxayna waa la isbaarayaa. cidda ku muraaqabeynaysa rasmi kula socota waa Allah qof walba Allah ka baqo. waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo.